السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا حذيفة عشية channel كذا ونسألنا وحذيفة vlogs كسر هذا channel كان فضلا هذا channel كعصب تاع subscribe نوصار فيديو قدرت كيشنا لايك نوصار وما سنتين صاحب يا ومركلة يوم وقال كله مانتا إن سو وقتين بعيد ويان إن ولو أهل شلين عيد ونكسر مركو هذه مرة هذه مرسل حات إن محني وذا برنامج عصب وأنا قلت لك العيدة إن برنامج كانوا كدنيا برنامج كذي هردان ما دام العيدة هي وهدنا أي صورة جلهين إلا كلمه oo masaajidii iyo goobii kala suuqa lagu kulmiyay la mamnuucay xanuunka covid-19 awgiis waxa ay soo rogasheen asxaabta xaafadooda ku soo booqdo oo bal aan weydiiyo qaabkii ciideen iyo ciidoodu siday ahayd ila daawada bal dadku si ku soo jawaabeen videogan maanta waxa la joogaa oo barnaamijka martiigo saaxiibkii Cali Waberi oo isagana ku weydiin doono su'aalo ku saabsan ciid insha Allah soo dhawaada علي عيد ونكسن عيد مبارك كل عام وانتم بالخير haddii aan ku weydiiyo su'aal ka waran ciida iyo ciidan iyo ciido hore say ku kala duwan yihiin labada su'aalood noo soo yarkoob ما شاء الله والله الحمد لله رب العالمين عيدا iyo ciidii hore waa waxa uu yar dhaxeeyo in yaro ayaa u dhaxeeyo waxaan difeeran saa u dhaxeeyo sax waayo ciidii hore de waxay ahayd ciid aan masaajid aan ku tukanayno oo la war farxsanayo ayadoo la mashquulsan yahay exactly hadana alxamdulillah rabbil alamin in kasta hadana maanta aan guriyaha ku tukanay si fiican ciid noogu dhacday waana tukanay ilaahay waan naga aqbali doono insha Allah إن شاء الله وأد بينو في عنتها الحمد لله إن كستي وحوير دحيان ما شاء الله إن يتجعلان لهذنا هل كان إن كترادو تنبليد عيدا إن تكسلانتو عن بعض وهم بليسو والله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين دمان هرت واحد سلامة يا أمة الإسلام كا جارهنا صومالي ذا ملك كستي دافها يدنيا إن كستي أي في جوان الحمد لله واحد في حجسين يا فامي جيجا وما هذني يكونوا توبيا ويدي الله خير هسيو waxaan leeyahay ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan kale ku xiisinaya faamin khayrkayga oo maxay heedanay wiilkayga iyo gabadhayda iyo hooridayda insha Allah waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadka sanadkiisa bash iyo barwaaqo Allah nagu gaarsiiyo insha Allah cimri dheer sanadka iyo ummadda islaamka caalamka ku nool amiin waxa dhinacayga bidix fadhiya saaxiibkay Maxamed Cabdirasaaq Cabduqaadir soo dhaw saaxiib Maxamed waa dhawaad saaxiib waa maasan tahay masal xudeyba waanu ku faraxsanahay channelkaaga maanta nagu soo booqdo halkaan waxaan doonay inaan ku weydiiyo saaxiib ka waran bal ciidan iyo ciidii hore maxay kala duwan yihiin aan ku yiraahdo ciid wanaagsanteeda kale ciid wanaagsan dhamaantiin kulli waxay ku kala duwan tahay waxa weeyaan waqti xasaasi ay ku soo aaday oo coronavirus uu jiro cudurkan safmareyka sidoo kale guriyada ayaa wali la jooga magaalada access-keeduna aad u furna masaajidada waa xiran tahay ونيده ayaan ka ciidnay kaliya waxa weeyaan asxaabteena iyo familkeena ayaan facebookyada iyo baraha social media kala ciidnay ما شاء الله إن صاحب ورنو إن ضدك يردن ببروبلم كاساهستا إن أصحابتنا إن أنتوا والدين تودي يكو حتى حنوكو وساميين وحلينا هاي الله ينعافيه ونسوا دعينا إن صاحب وتكون مع سنتها جواب تقرح بدن إن حدا فرصة كوسيو يد هل كان إسلام هاي أتكلم ذاك عيدة إن فرحة عيدة إن شاء الله dhamaan waxaan halkan tahniyada ciida ugu diray ciid wanaagsan dhamaan asxaabteyda familkeyga ehelkeyga iyo inta ay garanayso asxaaba iyo sidoo kale asxaabteyda Soomaaliya oo dhamaan igu qaaliya ciid wanaagsan mar kale iyo barnaamijkeeni su'aalaha ku saabsan ciida iyo aan kaga faa'iideysan asxaabtan aan ku weydiinay su'aalaha ku saabsan ciida waxa martiya mar kale saaxiibkay walaalkay Mukhtaar soo dhaw Mukhtaar ma santahay in Xudayfi aad baan u dhawahay ma sha Allah ciid wanaagsan ان مختار horta waan ku hambalyeynaya adiga dhamaan heelkaba iyo dhamaan asxaabta waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su'aal ku saabsan ciida ka waran ciidan iyo farqiga u dhaxeeya ciidii hore aad soo ciiday horta runtii farqi koowaad u dhaxeeya waxa weeye ciidan aad baa loo kala ciiday oo waad ogtahay Soomaaliya ciid baa laga ciiday wadamada inkastoo wadamada muslimka aysan ciidin haddana farqiga ugu weyn wuxuu ahaa in aad maaragtay loo kala saftay tan labaad waxa weeye waxa lagu jira xanuunkii covid-19 oo saameyn badan nagu yeeshay masaajidada aan ku tukan jirnay shacaa'irta islaamka la muujin jiray oo dhan meesha ka baxday waxaas oo dhan marka farqi weyn baa u dhaxeeya waa xaqiiqtaasi lama isma barbar dhigi karo sanadadii hore iyo sanadkan
waa mid iska cad wad maasantahay mukhtaar halkan yaad jeceshahay maanta maadaama ay tahay maalin farxada walow aan shalay ciidnayna ku haddana waxaan jeclaan lahaa inaad hal iyo laba asxaabtaada iyo ehelka aad uga tahniyadayso halkan niyo aad baad muusantay fursada qaaliga aad siisay horta waxaan uga faa'iidaysanayaa kow adiga ciid wanaagsan kadib waxaan halkan ciid wanaagsan uga dirayaa dhammaan maaragtay familkayga asxaabtayda meel kastoo joogaan gaar ahaan asxaabta reenaad wadanka faransa dhammaan haddii codkayga maqlayaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr insha allah waxaan rajaynaynaa ciidan ciideeda anagoo farxad maaragtay masaajidadu noo furan yihiin si farxad inaan ku wada ciidi doono insha allah waa runtii waxaan salaamaynaa asxaabteena gaarka ee magaaladan ku nool reenaant aad baad mahadsantihiin ciid wanaagsan baan leenahay idinka iyo dhammaan eheladiinaba waxaa markana garabkayga fadhiya walaalkay yaxye aan jecelahay isagana inaan wax ka weydiiyo bal ciidda iyo qaabkii isaga bal ugu bilatay soo dhowo yaxye marka koowaad waa mahadsantahay waan dhawahay yaxye waxaan rabay inaan wax kaa weydiiyo walaal bal ka waran ciidan iyo ciiddii hore farqiga u dhexeeya iyo kala duwanaansheega hal iyo laba maxamed waad mahadsantahay marka hore marka labaad waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo dhammaan ummadaha islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa bashashii wadhooqa ilaahay lagu wada gaarsiiyo dhammaanteen haddii aan usoo laabto su-aashaada jawaabteeda waxay ila tahay inay caddahay farqiga u dhexeeya ciidan iyo ciidihii hore dhammaan dunida dhan sida aad ogtahayba ciidihii hore dadka islaamku meel kasta uu joogo si wada jir ah ay u ciidi jireen maxay ahayto masaajidada la tegi jiray maxay ahayto looda qaadan jiray waqtiga laakiin hadda ciidan waxaa dhacay xanuunkan coronaviruska oo caalamka oo dhan ku baahay kaas oo sababay in dhammaan la xidho goobihii cibaadada oo xataa xaramkii uu ku jiro marka waa dareemi kartaa marka farqiga u dhexeeya haba yaraatee ma jiro maanta qof intuu masaajid tegay marka laga reebo wadamo kooban sida soomaaliya oo kale qof intuu masaajid tegay ku tukaday oo ku ciiday ma jiro marka dadku guryaha ayay ku ciideen xataa waxaa adkaatay dadka in badan oo kamid ah inay aadaan asxaabtooda iyo eheladooda degan magaalooyinka ka duwan maxay ahayto magaalada ay degan yihiin marka aad bay kala duwan yihiin ciidan iyo tii hore waa sax wad mahadsantahay walaalqaali waana sida ay tahay xaqiiqdu su-aashaas jawaabteeda waxaan filaya inaan ku wada qanci doono idinka iyo dhammaanteen inaguba mar kale yaad jeceshay halkan inaad kala wadaagto taaniyadda ciidda insha allah adigoo mahadsan mar kale waxaan rabaa inaan la wadaago taaniyadda ciidda dhammaan ummadda soomaaliyeed marka hore marka labaadna ehelkayga oo kala jooga soomaaliya iyo dibadda wadamo kala duwanba oo ay ugu horeyso xaaskayga anise maxamed yuusuf iyo caruurtayda hanad yaxya xaashi xasan kaafi yaxya xaashi ikraan yaxya xaashi ilyaas yaxya xaashi iyo maandeeq yaxya xaashi iyo dhammaan qoyska reer xaashi maxamed iyo inta ehel iyo qaraaba iyo asxaabba aan nahay saaxiibka ismaaciil oon rabay inaan wax ka weydiiyo ciidda iyo qaabka looga ciiday iyo kala duwanaanshaha ciidan iyo ciidihii hore soo dhawaada marka ismaaciil soo dhawo waan dhawahay walaal maxamed aad iyo aad baad umahadsantahay ciid mubaarak waa mahadsantahay mar kale ciid wanaagsan adiga iyo dhammaan ehelkaba ka waran ciidan iyo ciidihii hore kala duwanaanshooga ismaaciilo walaal maxamed aad baad umahadsantahay waxaa jirta aad bay u kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin labadaynuba aadna shalay baad ciidaana maantaan ciiday oo saasaa dalweynaha faransiiska qolba maruu ciiday iyo caalamkaba waxay kaloo ku kala duwan yihiin haddii laba koruu yahay dee guryaha lagu yiido cid masaajid iyo guryo lagu ciidi jiray guud ahaan khadkii ka baxeen marka salaada qolka hoostiisunbaa la iskaga washkanayay howlo badan bay ku kala duwan yihiin ciidan kala duwanaansheegu marka aad buu wax maaha laisku bardhigi kareeba aad buu kala fog yahay waad mahadsantahay ismaaciil yaad jeceshay halkan inaad uga ciidda tahniyadda ciid uga dirto waxaan u tahniyadeynayaa walaal ummadda muslimka guud ahaan gaar ahaan intay fahmaysa afkayga ee soomaalida ah ama afka soomaaliga ku hadasha familigayga asxaabtayda meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak baan leeyahay caafimaadku ciida